garsooraha maxkamadda gobol degme Gabiley waaxda Wajaale mudane Maxamed Cumar Dhimbil oo maanta waraysi khaas ah siiyay telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV ayaa waxa uu ka warbixiyay sanadkii dhamaaday ee 2019 waxyaalaha u qabsoomay iyo dacwadaha ay galeen maxkamadda gobol degme Gabiley waaxda Wajaale sidoo kale garsoore Maxamed Cumar Dhimbil ayaa isagu waxa uu mahad celiyay sidoo kale garsooraha maxkamadda gobol degme Gabiley waaxda Wajaale Maxamed Cumar Dhimbil ayaa isagu waxa uu mahad celiyay taliyaha saldhigga iyo baarayaasha saldhigga degmada Wajaale sida ay ula shaqeeyeen maxkamadda gobol degme Gabiley waaxda Wajaale garsooraha maxkamadda gobol degme Gabiley waaxda Wajaale Maxamed Cumar Dhimbil oo isagu faahfaahinaya sanadkii dhamaaday waxyaalaha u qabsoomay maxkamadda gobol degme Gabiley waaxda Wajaale maxkamadda gobol degme Gabiley waaxda Wajaale waxa soo galay sanadkan 260 dacwadood dhammaan dacwadahaasi way dhamaadeen marka laga reebo 4 dacwadood oo socdo mooyaane maxkamadda degmada Wajaale waxa qaybta madaniga soo galay 80 dacwadood dhammaan way dhamaadeen marka laga reebo 25 dacwadood oo maanta laga garnaqoodu uu socdo oo 3 kamidi ay gabagabo ku dhow yihiin waxa kale oo xusud mudan in khamriga maxkamadda soo galay ad muuqaalka ku arki doontaan dhammaan askarta booliska oo si fiican uga howlgasha degmada Wajaale oo khamriga badan soo ururisa xashiishada ayaa ku soo kordhay sanadkan oo aad u fara badan 3 biloodkan ugu dambeeyay xashiishad aad u fara badan oo ilaa 5 kiilo gaadhaysa ayaan ku qabanay maxkamadda degmada Wajaale Qadar Cabdi Cabdilaahi telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV magaala ganacsiyeedka degmada Tog Wajaale